السلام عليكم أصحابتي قالك دمانتين kusoo dhawaada cooking with Sucaad dhamaantii ku cusubtiina kusoo dhawaada familka subscribe ka dhinaciisana gambaleel yariis ayuu ku yaalaa gambaleelkaas furta mar walba video aan soo geli sii dhaqsaynay soo gaaraan sidaas asxaabteeda qaaliga maanta waxaan sameynaa qada aad iyo aad u fudud dhamaantiin ka faa'iidi doontiin qadada maanta waxyaabaha aan ka sameynaa waxyaabo aad iyo aad u sahlan waay marka waxaan rajeynayaa dhamaantiin inaad ka faa'iidi doontiin hadda maanta ku cusubtiin asxaabteeda qaaliga kusoo dhawaada channelkayga cooking with Sucaad channel labaad ayaan leeyahay channelkayga labaadna magaciisa waa kay waxayuu ku qoran yahay Sucaad recipes oo arkaysiin magaca sidaas ayuu u qoran yahay marka videogan haddaan soo gelinaa comment-ka dhexdeeda linkigiisa ayaan soo gelinaa kadibna pin ayaan saarayaa linkigaas markaa daawatid waxayuu ku geenaa channelkayga labaad sidaas ayaa usoo booq kartaa subscribe ayaa saari kartaa haddaa weli arkin kusoo dhawaada channelka labaad waxyaabo badan aad u fudud ayaan soo geliyaa dhammaantiin aad ka faa'iidi doontiin waxyaalo kale oo badan waan soo geli doonaa dhammaantiin aad ka faa'iideysiin marka channelka labaad soo booqda subscribe saara soo waxay idin tusinaya sidaan u sameynaa maanta qadada sidaas la socda dhammaantiin daawasho waxaan asxaabteeda qaaliga hadda taawada waxaan ku shubayaa saliid waxay roo saliid qiyaas ayaan ku shubayaa suugada aan ku karinayo kadibna saliid markay kulaatana waxaan ku shubanayaa basal hal xabo basal aan soo jarjaro waay kadibna hal xabo karoota aan soo jarjaro ayaan ku darsanayaa kadibna waxaan sameynayaa karootadii basasha saliidaas ayaan ku dhex shiilayaa andeen waa idin tusinaya waxyaabaha kale aan ku dari doono saas xabtada basasheena iyo karootada wax yariis aan isku dhex shiilay hadda waxaan ku darsanayaa hilib shiishiid waay hilib shiishiidkaasete ayaan ku darayaa kadibna waan isku sii karinayaa basashii karootada hilib shiishiidka saas xabta waa aragteen hilib shiishiidka sidaas ayaan u kariyo wax yar biyo ayuu dhalayaa marka biyahaas ayaan sugayaa markuu qaleel noqdana kadibna waxyaabaha kale aan ku daraa idin tusinaya marka hadda intuu biyaha qaleel noqon waxaan ku darsanayaa wax yar oo filfil midoob oo shiidan ayaan ku daray kadibna wax yar oo basbaaska gaduudka chili flakes midka la soo jajabiyay basbaas gaduud ayaan ku daray hadda basbaas cuninin laazima inaan ku darsid basbaaska iska dhaafaysa laakiin hadda jeceshid just wax yar oo chili flakes basbaaskaas gaduudka la soo jajabiyay ku darso macaan ayuu ka dhigayaa suugada saada intaaseeti waxyaabo ayaan isku sii karinayaa hilibka ayaan sugayaa biyaha intuu qaleel ka noqdo kadibna hadda waxaan ku darsanayaa digirka cagaarka ayaan ku daraa couscouska kadibna hadda waxaan ku darsanayaa asxaabta yaanyo shiishiid ayaan ku darayaa laba qaado qiyaastiisa oo yaanyo shiishiid marka suugada yaanyo shiishiidka marka lagu daro waa waqtin gaduud ayuu noqonayaa marka muhiim laazim waa inaad suugada baastada inaad ku dartid yaanyo shiishiid soo laba qaado yaanyo shiishiidkaas ayaan ku daray kadibna hilibkaas ayaan ku dhex shiilaa yaanyo shiishiidka si fiican inuu karo ayaa loo baahan yahay marka ilaa 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo sidaas ayaan ugu dhex karinayaa hilibka dhexdeeda kadibna hadda waxaan ku darsanayaa dhalahan waxaa igu jira soya sauce waay marka soya sauce-kaas ayaan ku darayaa suugada asxaabta suugada mar badan ayaan sameystaa laakiin soya sauce-ka laazim waa inaan ku daro suugada baastada aan sameysanayno because zaaid ayuu u macaynaysaa soya sauce-kana asxaabta supermarket-ka hadda aadid waad ka helaysaa marka normal supermarket-ka ayaa la gadaa laakiin I don't know dukaamanka badanaanka laga helo kadibna cusbo ayaan ku darsaday wax yar oo cusbo adinkana qiyaasiina ku darsaday marka asxaabta soya sauce-ka wax yar ayaan ku daraaday ilaa hal qaadi bar qiyaastiisa ayaan ku darsaday soo kadibna waxaan sameynaa waxyaabahaas dhan aan isku dhex shiilayaa marka asxaabta haddaa helaysiin soya sauce ku darsada zaaid ayuu u macaynaysaa suugada marka sidaas la socda
kadibna hadda waxaan ku darsanayaa 2 xabo yaanyo waa aan soo shiiday. Yaanyada markaan soo shiidaa wax yar oo biyo ayaan ku shubay ayaan ku soo shiiday. Yaanyada biyo badan oo ku shuban biyo ma la rabo inaad ka dhigtid suugada yaanyada ku karinaysid marka adeeg ayaa la rabaa inuu ahaado. So 2 xabo yaanyo wax yar oo biyo ayaan ku dhibciyay kadibna waan soo shiiday and then hilibkaas shiidka dhexdeeda ayaan ku daray. So hadda waxaan sameynayaa hilibkaaseeti yaanyadii aan ku daro wax yar aan isku sii karinayaa. Kadibna hadda waxaan ku darsanayaa tuun ayaan ku darayaa 2 xabo tuun waa aan soo tumay ma soo shiidan just waan soo tumay 2daas xabo tuun ayaan ku darsanayaa. So marka asxaabta marka hilibka aan karinayo tuun ma ku darin because tuunku waxay ku macaan badan yahay suugada in lagu daro marka yaanyada aad ku shubtid kadibna carafkiisa ma ka baxayo suugada. So sidaas darteed because hilibka hadaan ku dhex shiili lahay carafka dhan uu ka bixi lahay tuunka marka sidaas ma rabin. So marka yaanyada aan ku shubay kadibna ayaa tuunka aan ku daray. So hadda waa aragteen marka waxyaabahaas dhan si fiican aan isku qasay. Marka suugada hadda weli wax oo biyo ah ma ku darin. So biyo ayaa loo baahan yahay inaad ku dartid because waxyaabihii dhan aan isku dardana si fiican u karo. Yaanyada markaan ku daray yaanyada biyo badan ma ku jirin. So hadda waxaan ku darsanayaa nus bakeer qiyaastii so biyo ayaan ku karinayaa. So asxaabta marka nuska bakeer biyo aan ku daray intaas ayaan ku karinayaa suugada because suugada zaaid inaad u karisid ma u baahantid. And then hadda waxaan ku darsaday wax yar oo maraq digaag ayaan ku daray so si fiican aan ugu qasayaa kadibna waxaan sameynayaa dabool ayaan saarayaa dab hoose ayaan ku karinayaa maraba suugada inuu iga gubto. So adiga ilaa 3 daqiiqo 4 daqiiqo dab hoose ayaan ku karinayaa. So asxaabteeda qaaliga marka 4 daqiiqo ayaa laga joogaa inta aan kariyo suugada. Marka waa aragteen siduu u karkaraayo because hilibka already si fiican ayaan saliid ugu dhex shiilay waqti badan ma qaadanayso suugada kariskiisana hadaad taqaantiin. Kadibna hadda waxaan ku darsanayaa barbarooni ayaan ku darayaa barbarooni aan soo jarjaray. So barbaroonigan waxaan ku darsanayaa markaas suugada already bislaaday because hadda markaan ku dar barbarooniga wax yar kadib barbarooniga jilaac ayuu noqonayaa marka ma loo baahan zaaid inaad u karisid barbarooniga suugada. So hadda waxaan sameynayaa si fiican aan ugu qasay barbaroonigaas aan ku daray kadibna hadda waxaan ku darsanayaa baradho ayaan ku darayaa baradhahan waa aragteen waan soo dubay saliid ayaan ku soo dubay chipsi ayaan ka dhigay sayska qiyaaska sida chipsiga oo kale baradhaha loo jarjaro. Kadibna saliid ayaan ku soo dubay kadib ayaan ku darsaday suugada markuu bislaado ayaan ku darayaa because biyo ma loo baahan inaad ku dartid marka baradhaha aad ku dartid. So baradhaha already bisel waay saliid ayaan ku soo dubay kadibna ayaan suugada dhexdeeda ayaan ku daray. So asxaabta suugada markaas sidaan loo kariyo zaaid ayuu macaan badan yahay ay habadinkan inaa barooway doontii recipe-gan suugada maan sidaan u sameeyay marka barooway sinaad arki doontiin macaankiisa siduu u dhadhamayo. So asxaabta waxaan sameynaa waa aragteen baradhaha si fiican aan ugu qasay. Hadda marka suugadeena bisel waay waxaan sameynayaa baastada ayaan karinayaa. Marka dabka u gaabi ama daarabtidna dabka iska dami hadhow marka suugada baastada aad karsid kadib ayaa ku leeysan kartaa. So hadda sufriyada kale ayaan dabka saaray kadibna biyo kuleel aan soo karkariyay ayaan ku shubay and then wax yar oo saliid ayaan ku darayaa kadibna cusbo ayaan ku darayaa cusbo qiyaasiin ku darsada marka baastada ayaan ku karinayaa biyahan aan karkarinayo waa aragteen biyaha already waan soo karkariyay laakiin wax yar waan sii sugaa si fiican inuu u karkaro and then baastada ayaan ku shubay marka baastada noocaan isticmaalo midka balbalaarka ah. So baastadaas ayaan isticmaalayaa ma aha midka dhudhuubka so midka balbalaarka waay kaas ayaan karsanayaa maanta. So I hope inshallah idinkan inaa barooway doontiin recipe-gan qadada maan sidaan u sameeyay. I hope videogan inaa ka faa'iideen sidaan u sameeyay suugadan maanta iyo baastada. Videogan hadaa ka heshiin inshallah videogan like saar si share gareysii walaalaaga asxaabtaada arkaan ay ka faa'iidaan. Asxaabta maantiga cusubna ku soo dhawaada familka subscribe saar. Subscribe ka dhinaciisa gambaleel yaris ayuu ku yaalaa. Gambaleelkaas furta mar walba video aan soo geliyo dhaqsaynay soo gaaran. So asxaabta aragteen baastada wax yar dabool ayaan saaray kadibna bisel ayuu noqday sidaas ayaan u gadgadinayaa and then hadda waxaan sameynayaa biyahaas ayaan ka miirayaa baastada waan soo raacsiinayaa biyo ayaan ku soo raacsiinayaa kadibna markaan soo raacsiyo waan soo miiray and then hadda sufriyadiisa ayaan ku celiyay marka sufriyada markaan ku shubo kadib waxaan ku kurshubanayaa wax yar oo soya sauce ayaan ku shubayaa. Soya sauce-ka hal qaad iyo bar qiyaastiisa ayaa ku shuba kartaa marka hal qaad iyo bar qiyaastiisa ayaan ku shubo soya sauce kadibna waxaan sameynayaa baastada si fiican aan ugu qasayaa. Marka asxaabta
baastadii suugada markaas sidaan loo kariyo zaaid ayuu macaan badan yahay, especially markaas soya sauce lagu daro. Asxaabta soya sauce meel walba adduunka aad joogto inaad ka helaysiin, supermarket-ka hadaa aadin soya sauce waad ka helaysaa. Marka waxaan rajeynayaa idinkan inaad barowey doontiin sidaan aniga aan u sameystay qadadeeda maanta. Marka waxaan rajeynayaa videogan dhammaantiin inaad ka faa'iideen. I hope idinkan insha Allah inaad sidaan u sameysatiin. Videogan hadaa ka heshiina sii share gareeya, sii walaalihiin asxaabtiina arkaan ay ka faa'iidaan. Marka asxaabtada baastadeena diyaar waaye. Suugadeennina dabka waan u gaabi waa aragtay sidaas ayuu u karayaa. Soo asxaabta suugada markaa karsanaysidna markaa baradhada aad ku shubeysid wax biyo kala ah ku darin. Suugada markuu bislaado ayaad ku dareysaa baradhada iyo barbarooniga. Kadibna sidaan ayuu ku noqonaa, laakiin biyo aad ku dartid adigoo baradhada aad ku darto bisaal marka suugada dhan nooc kale ayuu ku noqonaa, sidaas mal rabo. Hadda saxanka ayaan ku shubanayaa qadadeena maanta. Kusoo dhawaada dhammaantiin asxaabteeda qaaliga. I hope videogan inaad ka hesheen. I hope idinkan inaad barowey doontiin. Soo asxaabteeda qaaliga dhammaantiin ku cusubtiina kusoo dhawaada family subscribe sar channelkii labaadna soo booqo Sucaad Recipes. Linkigiisana videogan dhexdiisa ayaan soo gelinayaa. Linkigaas markaad daawatid channelkii labaad ayuu ku geynayaa Sucaad Recipes. Cuntooyin aad u fudud oo very quick ayaan soo geliyaa. Marka waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad ka faa'iidi doontiin. Soo asxaabteeda qaaliga videogeena maanta qadada intaas ayuu ku egyahay. Until then inshallah next video aan maqli doonaa with new recipe. dhammaantiin khayr badan ayaan idhaafi doonaa meel walba ka joogtaan. And as always ducadigu xasuusta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.